جعلني كالرعان مدسو صوت سينو دمبالي سوت سبيان boqoradii cidhiidhsiga iyo cagajuglayntaay cindigeedu ku rabo ee caashiq u galo cudud kula wareegtooy caqli baad u dhalatee in yar caajis naga saar ilaa jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa allaay aamus waad u timid oo ilaasho waa kane adna boqoradaydaay kuu baneeyey goobteenna ku babicodkaagii yaraan cishqi igu helay salaadii yabyabaan is-ili igleela rimahan isgalay inaad yeelaha jarto warwareegga dunida walbahaarka keeno wakhtigiiyo ayaamaha isweydaaranaya weecweec dhaliye xidigtan laga waayey oohin markii laga watay wankeedu waxay tidhi waayo waa hodan cabdiraxmaan cismaan muxibo waxa ay ku dhalatay magaalada Hargeysa sanadii 1986 waxa ay ku soo kaalin qaaday waxbarashadeeda ka bilowday gobolka Awdal magaalada Boorame 2001 waxay u kacaantay halka iyo Nairobi iyadoo faalmigeedu waa fanaanad Soomaaliyeed oo ay iska dhaleen laba kale oo fanaan magaceedu waa Khadra Cabdi Silimo loo garanogay Khadra Silimo waxa ay ku dhalatay magaalada Hargeysa sanadii 1984 waxa ay hayaanka nolosheeda iyo fankeedaba ka soo bilowday magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida sanadii 2008 xidigtan caankii waxay ka mid ahayd shakhsiyaadkii ugu horeeyay dhidibada u taagay kooxda xidigaha geeska 6 sano oo ay si xiriir ugu jirtay kooxda xidigaha geeska ama ay ka mid ahayd kooxdaas waxay ahayd mid ugu saameynta badan hees kasta ay soo qaadaan waxay ahayd mid sugitaankeeda iyo saameynteedu ay rabto xusuus gaar ah anoo isigaaga doona inaan calacalo adduunka inaan ciilkan bidooyo cawaaqibta waxaan sameynay waayaheeda faneed waxa uu ka soo bilaabay dalka Kenya magaalada Nairobi kooxdii waayaha cusub halkaas oo ay dalkii koobaad ay ka soo gashay fanka ilaa ay u dhooftay dalka Mareykanka oo ay soo qaaday heeso iyo muuqaalada gooni ah balse ay markii hore ka mid ahayd kooxdii xidigaha waayaha cusub kuwaas oo caan u ah kor u qaadida heesaha raabka anoo baahidaadiyo ku kaasaasan qabiil anoo baahidaadiyo ku kaasaasan qabiil kalaman bakhayle hawshaan kula boqollaa hayaanka soo rogaal celinteeda ayaa mar labaad ka hana qaaday magaalada Hargeysa markaas ay kala jaan qaaday kooxda xidigaha geeska oo ahaa qaar si weyn looga qadariyo xilliga ay ku soo laabatay magaalada ilaa ay kooxda dhexdeeda ka dareentay walax iyo wacdala jacayl balse abwaanka weyn Cabdirasaaq Xamed Caydiid Sheelaani iyo Maxamed Saciid Biike ayaa u heshiiyay soo saaray heesta nolosha cusub soo dhawe iyagoo ku sameeyay qolka ay ku jirtay kii ku xigay inta aanay heestu soo bixin ay ka qaadatay boorsooyinkeedii kuna laabatay halka ay ariga Mareykanka calafka cajiib ee mar kale ayaa calafkeedu noqday fanaanka caanka ah Maxamed Alta tisqaadka iyo horuqaadka taariikhda Khadra Silimo Khadri waa hooyo haysata 3 hablood way fanaanad lagu yaqaanay soo saaridda heeso fara badan oo xula kuwaas oo micno badan iyo saameyn badan ku lahaan jiray dhagaha dadka Soomaalida ee dhageysanaya inkastoo muddooyinkii u dambeysay aanay Khadri keenin wax heesa
inkastoo barashada iyo aqoonta loo leeyahay Khadra Cabdisalaam oo aanay ahayn mid hoos uga soo dhacay halkeedii hore mar walbana loo yaqaan Khadra Cabdisalaam inay ahayd fanaanad xula hodan Cabdiraxmaan oo laga filayay soo rogaal celinta ayaa waxay la soo laabatay wareegdeedii iyo wiil cad waxaanay si bilaa offside ugu jarday Khadra iyo saddexdeedii hablood iyadoo ku xarootay shabaqa Mursal Muuse hadduma axdaa kugu sabay nadowgiisa kula dhamay siduu kugu marayahay ana igu marag furay siduu kugu marayahay ana igu marag furay walaalkay ama walaasheeda qaaliga muuqaalkan daawatay fadlan like garay si uu muuqaalkan u fido haddii uu ka mutaystay share garay aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabi ahaan waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka inta waaniga wareergooy halka daawanaysa waduriya filmis hadaad hore ila joogtay hooyada ayaa aabbaha gowlamaan hadaad igu cusub tahay sidoo kale habeenka iyo maalintiina bahaydin waxnaadaan adeegsan scholarship waa xarun soo saarta fiisayaasha waxbarashada caafimaadka dalxiiska si gaara waxay xaruntu soo saartaa aqbalaadda jaamacadaha wadamada kale ah Turkey China India Russia Bangladesh Saudi Arabia Poland Pakistan iyo wadamo kale haddaba hel adigoo gurigaaga dhex jooga fiisayaasha dalalka kana rumee hadafka ku aadan aadista danahaaga caafimaad ardaynimo iyo dalxiis adeegsan scholarship waxa ay kugu bushaareynaysaa inay ku hayso fiisayaal jaban oo ardaynimo caafimaad dalxiis haddaba haddii aad jeceshahay inaad ka dhabayso hayaankaaga waxbarasho caafimaad iyo weliba dalxiis fadlan la xidhiidh xarunta kalena xidhiidh lambarada shaashada hortaada kaaga muuqda ama se emailka adeegsan 2017@gmail.com ama se soo booqo xafiiskeeda Hargeysa oo ku yaala dhanka bari ee basaska Siinay ee magaalada Hargeysa ogeysiis anfareeba aqbalaada ayaamo arday dirtay fariin ama se qof dalxiisa qofka aadaya xaalad caafimaad oo muhiim ah adeegsan ha ogaado fiisa aan aad u raagin ballanteenu waa adeegsan scholarship